laba qodob oo yar baan ku gabagabeynaya oo aniga khusay qodobka koobaad ummadda muslimka ee Soomaaliyeed dhalinyaradeedii xuqaasheedii culumadeedii indhergaradkeedii aad iyo aad ii garab istaagtay aflagaadadii xamar ka soo yeedhay baan aad ugu mahadnaqaaya man laa yashkuru الnaasa laa yashkuru illaah inaan si baan isu difaaco anugu aan faagtaan rabay laakiin waad igaga filaateen khayr allah idin siiyo inta fadhida iyo inta maqanba waxaa muslim lagu yahay in la isu hiiliyo xilliga hiila la kala mudan yahay marka bulshada hadda fadhiday iyo inta maqanba hadalkii uu gaari doono waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo sidaa aad ii difaacdeen haddaan khaldamana ii qabta sida aad ii difaacdeen haddaan ugu khaldamana ii qabta nin walbo lagu xadgudbana sidaad ii difaacdeen u difaaca ummaddu intaasoo kale haddii laga helo wax badan baa inoo hagaagi lahaa taasi marka waa mahadnaq iyo inaan dhaho allah idin barakeeyo una duceeyo dadkii cirdigayga lagu xadgudbay i garab istaagay si wanaagsan bulshada intii qaybadeeda kala duwan rag iyo dumarba صغير كبير عالم يا عامبا واد ما ثنتي نبا لغا شيغاي نمان عيلي باي عايا نمانكا waxa muuqanaysa inaan ciilay laakiin anoo ma qasdin intaas aan ku dhaafahaya wixii kale idinka qaatay